السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada EXC Technology. waa asxaabtiinii adaga barateen inay idiin soo jeediyaan cashiro ku saabsan Adobe Illustrator. maanta cashirkeena waxa uu ku saabsanaan doonaa hadduu alle idmo sida loo suubiyo Facebook cover. mar kale kusoo dhawaada EXC Technology. waxaad aga barateen cashiro ku saabsan Adobe Illustrator ilaa iyo 3 cashir oo hore ayaa soo qaadanay. maantana waana cashirkeeni afraad. intaan cashirka bilaabin fadlan ha hilmaamin inaad subscribe ku noqdo maxaa yeelay cashirada mar walba inay kusoo gaaraan. haddaad xiiseynaysid waa inaad subscribe noo saartaa. maanta cashirkeena waxaa kusoo qaadan doonaa sida loo suubiyo Facebook cover. aan soo furno Adobe Illustrator. Adobe Illustrator markaad soo kicisid sida hore u sheegnay inta tool bar ayuu ku leeyahay, intana menu bar ayuu ku leeyahay, qaybtana icon bar wey. marka ugu horeysa markaad rabtid inaad Facebook aad suubisid cover ama aad project ka dhex suubisid Adobe Illustrator waxaad aadaysaa file kadibna waxaad leedahay new kadibna inta imaanaysaa inta waxaa ku dooran cabiro intana waxaa ku dooran inta page aad rabtid balse A4 iyo A5 maanta ma taagno. waxaan doonanaynaa cabirkeena. waxaa muhiim ah in inta ku saaran tahay pixel inta ay ku saaran tahay pixel. haddii inji ahaan aad cabirka u haystin inji aad saaranaysaa millimeter u haystin millimeter. pixel markaan saarano inta imaanaynaa Facebook cover ballaca waxa uu yahay sida standardka ah 810 iyo 851 dhererka ama korkorna waxa uu yahay 315 kadib waxaad leedahay okay. sidan markay kugu soo furmato waxaa muhiim ah oo muhiimad koowaad la siiyaa markaad suubinaysid project in aad haysatid facilities ka fududeyn karo project. maanta anaga projectigan waxa uu ku saabsan yahay maqaaxi Facebook cover oo maqaaxi ah. maqaaxidan waxaa lagu gadaa marka maqaaxidan waxaa lagu gadaa hool oo meel la fadhiisto cuntooyinka lagu cuno way leedahay. aan soo furo maqaaxidan waxaa lagu gadaa cabitaan, sidoo kale waxaa lagu gadaa pizza, sidoo kale waxay leedahay kuraas lagu fadhiisto, sidoo kale waxaa lagu gadaa hamburger. intaas ayaan ka sameyn doonaa Facebook coverkeyga ka koobnaan doonaa. aan dib ugu noqdo Adobe Illustrator. kana iska celiyo sidoo kale kan waxaa ku sameyn karaa waxaad taaban karaa laga ama control 0 ayaa leedahay si uu fixed igu noqdo. intaas markaa joogo waxaa sameyn doonaa qaybta pizza soo hormarin doonaa. inta waxaa soo qaadanaysaa rectangle tool kadib geeska soo bilaabaya calaamad saaraysid hoosas ayaa geenaya kadib horadaas u soconaa ilaa inta markaa keeno. waxaa inta imaanaysaa inta waa fieldigi waa dhaxda ka kalarka dhaxda green hadaa rabtid waa ka dhigin kartaa. intana waxaa weeyaan kalar kale oo laho stock waxaa ka dhiganaysaa none kadib calaamad madow ka baxaysa meesha. okay intaas markaa joogto waxaad dooranaysaa direct selection toolkan kadib geeskas ayaa ku dhufanaya click kuwa kale way ka qaadmeen laakiin kaas bisa kadib falaarta ayaa la qabanayaa dhanka midig ayaa u jiidaya. haddaan rabo maxaa sameyn karaa muuska isticmaali karaa oo geeskas ayaa u jiidi karaa. intaas markaa sameeyo weli selectionkii ayaa ku noqonayaa wax yaraa sidaan usoo jiidaya. okay intaas markaa sameeyo inta ama aan calaamada sanjig soo sii karaa inta imaanaya waxaa dooranaya calaamadan oo ah draw inside in meeshan greenka ah lagu bedelo sawir oo kale. draw inside kaas click siinaya waxay isku bedelaysaa calaamad afar gees ah ayay yeelanaysaa oo dhibcaha markay saas yeelato waxaa leedahay file kadibna waxaa leedahay place marka dhufatid sawiradii meesha ku yaaleen
intay igu jiraan project ay kusii dhex jiraan Facebook hore kusii dhex jiraan waxaa usoo hormarinaa waxa la dhaho pizza kadibna waxaa leeyahay place kadib wax yaraa iska fogeynayaa control minus iskaga fogeeyey pizza sidaanay soo dhaweynaysaa weli soo dhaweey hoos cagaarka ay kaa noqotay wax yar iska soo badi pizza okay inta markaa pizza soo saartid sidoo kale waxaa keenayaa pizza markaa inta keeno kuwii kale ii dhiman kuwaas kale saa u keeno maqaaxida magaceeda qoran maqaaxida waxaa la dhahaa Higgs restaurant Higgs haddii aad astaan leedahay waa keenaysaa haddii kale magaceeda u qoraysaa Higgs restaurant kadib highlight saar control A lagu saaraa amase muuska adoo isticmaalaysaan ugu weynay kadibna waxaa saartaa kaba iyo weynay waxay iska yaray inta la kala hoos adoo isticmaalaya kadib soo qaad inta soo dhig Higgs restaurant farta ka bedel inta lagu bedelaa qaybtan waa hoos geenayaa qaybtan waa weyneynaya all kadib restaurant yaray okay Higgs restaurant kalarka maqaaxidaada ay leedahay muhiime waxaa leedahay waxaa isticmaalaa eyedrop kadib kalaradan oo cuntada mid kamid ah saara sida noqota arkayna Higgs waa gartay fartan weli waa weyntahay iga yaree kadibna waxaad chartskan ku dhufo kadib chartska ku dhufatid waxaa sameynaysaa kuwan waxaa ka isticmaalaysaa kan kow oo ah in kor loo qaado restaurant oo loo dhaweeyo Higgs haddii cagsi kor aad riixdid way ka fogaanaysaa hadda hoos u riixdidna u soo dhawaanaysaa sidoo kale waxaa isticmaalaysaa kan oo ah in fartan la kala fogeeyo haddii saas u jiidi karto riix haddii kalena waa soo furaysaa boqol haddii kugu yaraato 150 160 haddii kugu yaraato waa ku noqonaysaa 200 hadba ilaa uu iskaga simaayo kadib farta eyedrop waa dooranaya kalarkaas kalar ku macaan qaxwiga kadib maxaa sameynaya then maadaama Higgs ay tahay inta waa sii qurxinaa waxyaabaad yara ku tagaa calaamadan oo kale waxaa soo qaatay rectangle toolkaas kadib control shift bracketka oo furan aad click siinaa amase waxaad dhihi kartaa adoo control shift dhihin click arrange send it to the back control C control V amase keligaa leedahay kaas alta qabanaysa waa soo jiidaysaa intaa keenaysaa ka bedel marka waa yareynaa waa colorka ka bedelaya kadib hoos u deji wax yar weli yaree sabab uu qurxin waay okay maqaaxidan bisma lagu gadaa maya maxaa kale lagu gadaa waxaa soo qaadanaa wax la dhaho ellipse tool ayaan soo dhigayaa saana usoo jiidi kartaa laakiin shift qabo altna qabo si centerka ay ku noqoto shift alt adoo haysid ayaa muuska isticmaalaysaa kadib waxaa soo geli rabaa wax yar weynka ku dar 3 shay ayaa soo gelinayaa hamburger waxaa soo gelinayaa cabitaan laad markaa saas usoo wad markaas waxaa leedahay control T aan ku celiyo kan marka aasana yahay alta qabanaysaa keligaa leedahay alta qabanaysaa muuska left kiligiisa soo jiidaysaa si toosan calaamadaas markay suubiso oo xariiqa yarka dhexda ka suubsamaayo saas u toosto meesha yarka markaa geysaa sii deynaysaa waa copy paste macnaha kadib control T spaceka inta ka baxay
iyo spacekan isku mid noqonaya control D dheer then highlight wada saar waxay dhinacan soo celi anoo flat isticmaalayo okay waxaa soo gelinaa marka intaa waxaa rabaa inaan soo geliyo waxa la dhaho beger oo kale beger intaan soo geliyo waxaan usoo binayaa stock colorkan dhexda fieldigan wuu qarsoomi doonaa oo waxaa ku bedelmaayo waxaa ku bedelmaayo do'aleedmo sawir laakiin wareegiisa ayaa waxaa rabaa color inaad ka dhigto wareegi colorka ka dhigan doonaa color qaxwi ka dhigan doonaa kadib waa weyneynaa intaa laga weyneeyaa labadan highlight saar I dropkan soo dooro ama I dheh kili ku dheh sida isku mid u noqdaan kadib soo geli intaan beegaya soo gelinaa waxaan leeyahay highlight saaraya kadib inta ku dhufanaya draw inside kadib file kadib place kadibna waxaan leeyahay hamburger soo geli markuu saan soo galo wuu weyn yahay sawirka in la yareeyo rabaa yaree geeska soo qabo kadib kusoo aadi hamburgerka waa qaatay okay kana sidoo kale highlight saar fill drop dheh file dheh place dheh hamburger maxaa kaloo meesha ku yaala waxaa ii yaalo seafoodka oo chicken laga soo biyey wuu weyn yahay raadi angalkiisa soo qabo soo yaree intuu dhigmay kusoo aadi dhexda weynee ku dar seafood oo chicken laga soo biyey okay markuu meeshan geeskas ka aado kale faylka oo saas kaa noqdo waxaa leedahay control 0 suu centerka ugu soo noqdo okay kana noo dhiman cabitaan waxaa leedahay file haddii bahalkan uu sidaan kaa yahay waxaa ujeedaa kan si fiican ma loo arkaayo marka waxaa suubinaysaa geeskan aad soo siisanaysaa si aad u aragtid kanaa kili ku siinaysaa oo ah draw inside macnaha replace amal ka dhig kadib waxaa leedahay file kadib waxaa leedahay place kadib waxaa dooranaysaa cabitaanka kadib waxaa leedahay place cabitaan geeskan inuu joogaa malasa dhexda keen soo aad yaree soo aad dhexda kadib cabitaankas markuu kuu noqdo saas oo noqdo sidaa markay isku toosaan waxaa suubinayaa waxaa soo dooranaya rectangle tool geeskan aa kasoo bilaabaya geeskaasaa geynaya waxaa ku maqaaxida pizzaha dhex gelinaya kadib waxaa ka reebayaa calaamadan oo stop colorka ka reebaya sidaas markuu yahay waxaa leeyahay control shift bracket ku xiraa amase waxaa leeyahay right click arrange kadibna send it to the back leeyahay oo soo tagay okay ayadana waxaan rabaa inaan suubiyo calaamad kale oo inta kasoo bilaabato oo inta tagto oo color leh doonayno kaliya leedahay waa weyneynaysaa intas markaa heshid kana right click kordhahaysaa ama right kiliga leedahay waxaa leedahay objective extend kadibna okay kadib waxaa aragtaa geeskan ka imaatid soo dhaweey geeskan calaamada banaanka ku baxsan calaamadaas waa soo yareynaysaa gudaha soo gelinaysaa kana geeska gelinaysaa waa la simaa intana sidoo kale suubinaya hoostan waxaa ogaanaysaa adoobkan
Adobe kan loo Adobe Illustrator iyo Photoshop-ka waxay ku kala duwan yihiin waxaa waaye Photoshop-ka haddii wax rectangle oo kale inta kasoo sawirtid oo gudaha aad soo gelisid inta gudaha bis ku muuqanayso kan banaanka ma ku muuqanayo laakiin Adobe Illustrator saas maahan way wada muuqanayaan okay maxaa kuu muuqda marka hadda maqaaxidii magaceedii wixii ay gadaysay waa kana okay magacyaa u bixinaya marka kan magaciis waxaa waaye kan Najur oo ah drink cabitaanka oo dalka ah oo originalka ah maaha kuwa warshadaha ay suubiyaan okay farta soo yareeyay waa yare kalarkana soo siinaa because waxaa rabaa aan dhaho kalarkan qaxwaa siinaa waxaa rabaa in oo farta isku wada ekaato maqaaxida hal kalar ay aan ku tahay ee suubsan drink okay kan copy waa dhihi karaa control C control V dhihi karaa kadibna inta waa keeni karaa waxaa kaloo ii fudud inaan dhaho inaan sidaan inta kaliya u dhufto aalta qabto aan jiido tooskiisa oo aalta tahay kadib maxaa inta ku qoran seafood watan waa gartay sii jiidatan aalta adoo haysinta keen kan maxaa waaye pega okay saddex markaa saas u qorotid maqaaxida magaceeda ku qoran tahay waxaa kuu dhimi maqaaxidan contactiga lagala soo xiriirayo okay contactiga waxaa suubin karaa qoraal inta kusoo qoranaa Facebook maqaaxidan Facebookeeda waxaa waaye Higgs Rest mails hadaa rabo leeyahay marka waxaa suubinaa maqaaxida Facebookeeda waxaa ku qoraa horta F Facebook waaye highlight isaar far waxaa jirto iconada igu suubsan aniga oo loo type-ko kaliya ka dhao Facebook waa ii suubsan maayo kalarka ka bedela iDrop anoo isticmaalaa waa gartay farta caadi haddana text isoo qaad isoo qor maqaaxidan waxaa la lahaa Facebookeeda farta aan ka bedelo maqaaxidan Facebookeeda waxaa la lahaa highlight saar fartii waxaa ii saaran iconada intaa kaga bedelaa marka kadib weli fartiga sii bedel zaa'iday u tahay bold okay wax yaryarey okay kalarka bedel iDrop ayaa taabanaya keyboardka amase keliga waxaa ku suubinaysaa icon barkan kadibna waxaa ku suubinaysaa kalarka aragtida soo dooranaysaa direct waa ka dooran kartaa kalarada laakiin kalarkan hal mar doortay ii fiican aniga okay Facebookeeda waa kana maqaaxida waxaa yeelan kartaa sidoo kale Instagram haddaa u baahatid meeshaan Facebook ku dhufanaysaa ayaa taabanaya keyboardka Instagram ay ku noqonaya haddii iconada fartan ay ku jirin fartan waa ku shubtay fartan icon waxaa la icon type la lahaa type icon la lahaa oo regulated icon type ku qori kartaa waxaa ka raadi kartaa Google-ha farta ku soo degaysaa kadib installation ugu subsanaysaa Illustrator-ka okay daaro marka waxaa ku suubinaysaa qaybtan hoos shayba u yeelan karaa kadib waxaa soo qaadanaya kan loo round rectangle macnaha geesuhu ka soo wareegsan yahay sidaas kaga suubin karaa kor soo maray ma sidee hoos ugu diraa kana imaana kaliya leedahay right kaliya ku leedahay waxaa leedahay arrange send to the back kalarkana ka bedel waxaa suubin kartaa iDrop waa kana kalarka loogu bedelay kadibna kalarkana doorna haddii kalarkan suitable uu noqon waayo kalarkiisa hore u dhaafaysaa highlight oo saaray meesha wax ku yaal dhan shift adoo haysta midkii wax ku dhufanay oo weynka shape click inta kale ku soo haray right click aad leedahay ama se waxaad leedahay iDrop aad leedahay kadib asag kuwaan afarta ka bedelay mar haddii kuwa aad nimayso wide ka dhigay kalarka marka labada kale isku soo baxaya aad u deynaysaa kadib
maqaaxidan facebookeeda waa u dhamaystirtay coverka. markaas ugu dhamaystirtid maxaa sameynaysaa file aa leedahay, export aa leedahay, sidii photoshop oo kale save inta dhahdid oo ku save gareyn kartid sawir ku save gareyn kartid. midkan waxa save as dhahdid waxa ku save gareyn kartaa intaanoo type oo kamid yahay pdf oo loo isticmaalo qaybta printerka. haddaa rabtid inaad wax print gareysid brochure flyer board aad sameysid waxaa ku save gareysan kartaa pdf. sidaas darteed waxay kuu fududaanaysa inaad hadhow aad daabacatid. laakiin marka inta la joogo oo aragtid sawirkan inaad sawir ahaan u isticmaashid facebook cover aad saaratid waxaa leedahay file, kadib waxaa leedahay export, kadib waxaa leedahay jpg aad dooranaysaa, kadib facebook cover aad ku qoraysaa meesha aad rabtid markaa ku save gareysid save aa leedahay. kadib inta wuxuu ku leeyahay tayada waa tayada sawirka tayadiisa waaye. haddii sawirka tayadiisa aad rabtid inuu yaraato, inuu high noqoto, inuu medium noqoto, midkaas ay kugu xiran tahay. kadibna okay ayaa leedahay. kadibna noo save gareysmo waxaa ku cadeynaynaa waxaa aadaynaa meesha uu ku save gareysmo waa x iconada iga qarsan desktopka. marka intaa ka raadinaya x coverka intuu ku jiray project facebook cover intuu ku save gareysmo waa kana facebook coverka aan sameynay waa kana waa usoo banaa maqaaxida laho x restaurant. okay waxaan rajeynayaa in la fahmay. haddii cashirkan uu ku caawiyey oo aad ka heshay fadlan subscribe saar, cashirkana like saar, hana iloobin inaad share gareysid please. wixii commenti ah oo aad u baahan tahay oo su'aalaha commentiga noogu reeb, annaga ayaa kaaga soo jawaabi doono. haddii cashiro badan oo aga baahan tihiin ay jiraan, su'aalaha aga baahan tihiin hadday jiraan Adobe Photoshop, Illustrator iyo InDesign waana soo weydiin kartaa qaybtii hoose ee commentiga, kadib waa kaaga soo jawaabi doonaa. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.